Assalaamu calaykum ardayahay, soo dhowaada. Casharkan waxaan ku qaadan doonaa English Mastery. Marka hore waxaan fahmi doonaa English maxaa loola jeedaa, Mastery maxaa loola jeedaa. Sidaasi la mid a waxaa kaloon fahmi doonaa yaa Englishka master garayn kara iyo waxaa waa sidee loo master garayn karaa iyo maxaad u baahan tahay inaad bixiso si aad English aad u master garayso. Soo dhowaada. Aan ku bilowno what is English, okay? English. English waxaa waaye is a language waa luuqad. English luuqadda Englishka is the easiest language to learn waa luuqadda ugu fudud ee la barto. Sababtaa waxay tahay qof walbo maanta nool aad aragtid waxaa waaye Englishka wuu baran karaa hadduu dadaal bixiyo. Waxaa ku hadlo dadka Chineska ah ayaa ku hadlo, waxaa ku hadlo dadka Afrikaanta ah meel walbay ku nool yihiin, waxaa ku hadlo kuwaan maxay ahayde Asiaanka ayaa ku hadlo meel walbay ku nool yihiin. Caalamkan aan ku noolnahay maanta qaarad aan Englishka loogu hadlin ma jirto. Okay, aanu imaano marka qaybta labaad oo ah ama su'aasha labaad oo ah what is English Mastery? English Mastery means having a higher level of fluency, accuracy, and a confidence in using English across all skills: listening, speaking, reading, and writing. Aan isla fahanno marka waa maxay English Mastery. English Mastery waxaa loola jeedaa baa la dhahay having a higher level of fluency waa inaad lahaataa ama haysataa heer sare ee fluency. Fluency-ga marka maxaa loola jeedaa? Fluency-ga waxaa loola jeedaa accuracy waa saxnaasho and confidence, okay? Iyo kalsooni. Marka aad kalsooni leedahay luuqadda aad ku hadlaysid si kalsooni leh aa ugu hadlaysid ama aa akhrinaysid weliba si kalsooni leh waxaa tahay fluency. Midda kale waxay tahay accuracy waa inay saxnaataa luuqadda aad ku hadlaysid. Waxa aad isticmaalaysid waa inay ahaadaan wax saxan, okay? Wax saxan weliba si kalsooni leh. Okay, goormee marka? In using waa isticmaalka English luuqadda Englishka across all skills dhammaan xirfadaha, okay? Listening markaad dhegaysanaysid, speaking ku hadalkeeda, reading akhrinteeda iyo writing. Marka aad English ku hadlaysid ama aad dhegaysanaysid ama aad akhrinaysid ama aad qoraysid, haddii waxa aad qoraysid ama waxa aad ku hadlaysid ay yihiin wax oo saxan haddana aad kalsooni ku qabtid waxaa tahay English Mastery. Qof English master gareey ayaa tahay. Guud ahaan marka English Mastery waxaa loola jeedaa baa waxaa la dhahay understanding waa fahanka, okay, lagu daray speaking hadalka, lagu daray confidence kalsooni, lagu daray culture dadka culture-kaasi ama luuqadda aad ku hadlaysid culture-kooda ama dhaqankooda waa inaad fahansanaataa. Lagu daray practice iyo tijaabo iyo practice ayaa waxaa la dhahaa fluency. Fluency marka waxaa loola jeedaaba waxay tahay understanding waa inaad luuqaddii fahantaa, ku hadashaa, kalsooni aad muujisaa markaa ku hadlaysid ama markaa maxay ahayde dhegaysanaysid intuba culture-ka aad fahansanaataa ama dhaqanka dadkaasi aad fahansanaataa and practice sidaasi la mid ah aad practice garayn kartaa wixii hadda la soo sheegay. Waad hadashaa, si kalsooni leh ayaa u hadashaa, si saxan ayaa u hadashaa, waxaad isticmaalaysid waa wax saxan soo maaha haa waxaa tahay English Mastery. Mid kalaa jirto marka culture ah. Culture-ka waxaa waaye maxaa loola jeedaa culture? Maxaa inta loo soo dhexgeliyey? Culture-ka waa muhiim. Luuqad walba dad ayaa waxaa waaye asal u leh. Isla dadkaas asalka u leh waa inaad fahansanaataa culture-kooda ama dhaqankooda, okay? Waxay aaminsan yihiin, say u nool yihiin, waxay ka caawinaysaa in qofkaas waxa uu ka hadlaayo aad fahanto. Tusaale, boyfriend and girlfriend. Maxaa loola jeedaa? Haddii tusaale aad ku sharaxdid ka waran boyfriend iyo girlfriend xaas iyo maxay ahayde nin iyo naagtiis, maya waa qalad. Ayaga culture-kooda ama dhaqankooda wuxuu yahay in wiilka iyo gabarta ayadoonan isqabin inay noqon karaan saaxiibo, inay wada seexan karaan, inay wada noolaan karaan weliba guri gaar ah, okay? Waa dhaqankooda. Adi marka waxaa la rabaa inaad fahansanaatid dhaqankooda, then marka hadhow dambe ay dhahdo boyfriend waa inuu kuugu soo dhacaa maxay ahayde qof ay ayada maxay ahayde la noolaan karto aanan u ahayn xaas, okay? Waa inaad fahantaa marka dhaqanka ay ku leedahay luuqadda aad baranaysid dhaqankeeda waa inaad fahantaa, okay? Door weyn ayay ka ciyaartaa.
haddii marka aan ku soo celiyo fluency waxaa loola jeedaa inaad luuqad ku hadashid ama inaad luuqad isticmaashid okay si joogta ah u isticmaashid weliba markaad isticmaalaysid aad u isticmaashid si saxan ee qaldaadkaadu yaraadaan haddana aad kalsooni ku qabtid waxa aad markaasi maxay ahayde isticmaalaysid ee luuqadii ah mastery haddii dhegaysiga aad si fiican u taqaano laakiin marka aad hadlaysid aad gariiraysid you are not fluent ama fluency maaha waxaas haddii marka aad akhrinaysid aad fiican tahay laakiin marka ay qoraalka tahay ay kaa jajaban tahay soo maaha you are not a master ma tihid laakiin marka aad hadlaysid markaad dhegaysanaysid marka maxay ahayde fahamka la joogo marka maxay ahayde qof kale la hadlaysid haddii si kalsooni leh saxanaasho leh aad wax walba u fahmaysid aad u isticmaalaysid you are an english master waxaad tahay qof englishka master ku ah su-aasha saddexaad aan isweydiinaynaa waxay tahay who can learn english yaa englishka baran kara ama yaa englishka master garayn kara midka koowaad waxaa la dhahay everyone who can speak qof walba oo hadli kara ayaa master garayn kara ama baran kara english midda labaad waxaa la dhahay everyone who can take decision qof walba oo go-aan leh ayaa english baran karo ama master garayn karo midda labaad marka waa midda dadka kala reebtay qof walba wuu rabaa inuu english barto wuuna awoodaa inuu barto laakiin go-aankii ayaa dadka kala reebay oo qofna ka dhigay qof english ku hadlaa halka kuwa kale aysan english ku hadlin midda kale oo ugu dambeysa waxaa la dhahay who can learn english yaa english baran kara waxaa baran karo student ardayga ayaa baran karo ha ahaado young mid yar ama dhalinyaro ah ama old ha ahaado mid da ah oo qof weyn ah okay midda afaraad oo isweydiinta mudan baa waxay tahay what do you need to learn english what do you need to master english maxaad u baahan tahay si aad english u barato ama maxaad u baahan tahay si aad englishka u master garayso midda koowaad aad u baahan tahay ayaa waxay tahay successful system guulaystay for learning ee waxbarasho or ama curriculum waxaa la dhahaa sida buugaagta iskuullada lagu dhigo okay ama muqarar marka waxaa u baahan tahay inaad hesho marka koowaad system guulaystay ama curriculum saxan midda kale waxaa waaye coach qof ku haga or ama a teacher ama macallin haddii aad hesho marka system ku haga ama system iyo macallin aad isku hesho way kuu fadhidaa haddii ilaa iyo heer aa meel fiican soo gaartay aad heshay buugaag diyaarsan oo laga qoray ingilishka bilow ilaa iyo dhammaadna waa fursad kale ayadana marka waxaa u baahan tahay marka koowaad inaad hesho system guulaystay ama curriculum guulaystay oo nidaamsan midda kale waxaa waa macallin haddaa hesho waa sidii la rabay ama coach ee ku haga haddii aad heshana waxaa waa sidii la rabay gebagabadii waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee ogaahintan ama farintan gaaban mudane ama marow waxaa ku leeyahay qofna kuma bari karo wax markii laga reebo adigaa wax isbari kara hoggaanka nafsadaada adiga haaya aniga waan ku caawin karaa casharaantan waan kuu soo diri karaayoo si fiican waan kugu sharxi karaa laakiin dadaalka hamiga go'aanka adiga ayuu kaa bilaabanayaayo go'aanso fadlan maca asalaama